بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله تعالى وقفة استاجر كصابسا بش شعبان فضائش إلى هاي iyo axkaamaad iyada u gaar ah baynu insha Allah taala soo qaadan doona anaga oo soo koobi doona. bisha Shacbaan waxay kamid tahay bilooyinka fadaaisha faraha badan leh oo nabigeena sallallahu alayhi wasallam oo inoo sheegay. bal nabiga sallallahu alayhi wasallam bishodan aad buu u farbadin jiray soonka oo sunnada ah. wuxuu leeyahay Zayd ibn Harith radiyallahu anhu nabigu u yimid markaas uu ku yiri rasuulkii Allah ma arag bil aad kaga farabadiso soonkeeda bisha Shacbaan. rasuulku markaas uu ugu jawaabay sallallahu alayhi wasallam huwa shahrun yaghfalu anhu kathiru min an-nas. wuxuu yiri waa bil dadka intooda badan ay gaafiliin ka yihiin oo ay moogan yihiin. huwa shahrun yurfa'u al-a'malu lillahi subhanahu wa ta'ala, waa bil ilaahay loo kor yeelo acmaalaha. fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana saa'im. rasuulku wuxuu waxaan jecelahay in camalkayga la kor yeelo aniga oo sooman. umuna Aisha radiyallahu anha iyadana waxay leedahay ma ra'aytu rasuulullah sallallahu alayhi wasallam istakmala shahra qat illa shahru ramadan wa ma ra'aytu akthar minhu siyaman min shahr sha'ban. ma arag baytii nabi sallallahu alayhi wasallam oo kaamilay soon bil dhan dhameystiraya aan ka ahayn bisha ramadan. mana arag baytii bil oo kaga farabadin badnaa soonkeeda bisha sha'ban. oo aad buu nabi u farbadin jiray soonkeeda salaatu rabbi wa salaamu alayhi. haweenka 15aadka ee bishan fadaaisha u sii gaarka wax weeye ilaahay subhanahu wa ta'ala ba adduunyada soo daalacanaya. markaas uu ilaahay wuxuu u dambi dhaafayaa adoomadiisa oo dhan. in Allah la yattali'u fi laylati nisf min sha'ban. ilaahay wuxuu soo daalacdaa haweenka kala barka ee sha'ban adoomadiisa fayaghfiru li jami'i khalqi. ilaahay khalqigiisa oo dhan wuu u dambi dhaafayaa illa li mushrikin aw mushahin. mid gaal ah oo ilaahay ka furto gaal ah maahana iyo mid col walaalkii la ah oo qalbigiisa walaalkiisi u xuno col ka ah. marka in laga faa'iideysto bishan maalin walba kamid ah acmaasheed ilaahay baa loo rafciyaa azza wa jalla. bilooyinka way ka gidisan tahay, bilooyinka kale isbuuci baa loo mar loo rafciyaa alle, laakiin bishan maalin walba kamid ah acmaale ilaahay baa loo rafciyaa. marka in laga faa'iideysto fadaaisha khayrka iyo wanaaga leh ayaa loo baahay. wax yar marka waxaan ku soo gabagabeynaa ahkaamteeda. haweenka 15aad wixii ka dambeeya soomanka mutlaqada ah way istaagayaan. ونبي صلى الله عليه وسلم وريبي وحول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف الشعبان فلا تصوموا. هذا شعبان كلا برتو هسومنا وقف عن هوري صون وصعنين أما صون راتبه أو عمره يوصل لهين يوصل سومن أو صون كالسنة ذا مركب وكراهيو وعشان توانك كدم بايا. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.